بسم الله الرحمن الرحيم. مناسبة بشي رمضان أي dhamaanayso waxaan salaan iyo hambaliyo u dirahayaa shacbiga Soomaalida Ogaadeniya gaar ahaan jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya iyo howlwadeenkeeda waxaan Ilaahay ka baryahayaa in ay si fiican ay ku ciidaan ciid nabad iyo guul inay ku ciidaan waxaan Ilaahay ka baryahayaa ujeedadii muddada dheer loo halgamahayay halganka adag umadu soo martay in Ilaahay uu ku guuleeyo oo shacbiga Soomaalida Ogaadeniya oo ujeedadiisii gaadhay la arko oo Ilaahay taan uu guuleeyo munaasabadan waxaan Ilaahay ka baryahayaa inuu naga dhigo kuwii soonkooda iyo salaadooda iyo qiyaamkooda kuwii la aqbalay inuu nagu daro yaan Ilaahay ka baryahayaa dambigayaga iyo kii ummadayadaba inuu dhaafo iyo kii waalidkayaba yaan Ilaahay ka baryaynaa intaas ka bacdi munaasabadan tada waxaan runtii jecelahay inaan salaan u diro naftood horiyaasha meelay joogaanba maadaama oo aynu muddo badan dibadda ka halgamaynay haddana aynu nimid dalkeeni aynu nimid ujeedadeennuna ayna isbedelin oo ay tahay tii hore ahayd dadkayagu inuu aayahooda ka tashadaan hawshaas si loo gaadho waxaa mar walba ina faran ama waajibaadkeenu yahay inaynu hawlaheena meel aynu joognaba inaynu si xoog leh oo si mintidnimo iyo wada jira inaynu u qabanno inaynu ka shaqayno midnimada ummadeena inaynu ka shaqayno inaynu ummadeena wacyi gelino oo aynu ku wacyi gelino waxa aynu doonayno waxa uu yahay iyo qiimigiisa inaynu ummadeena mar walba ku wacyi gelino si ummadeenu ay u guuleysatana waa laga maarmaan mar walba inaynu midnimo helo oo ummadeenu ay mid tahay shacbigeenuna meel uu jooga ama gobol uu degan yahayba inay shacbi midaysan oo hal ujeedo leh ay noqdaan yaan aad iyo aad Ilaahay uga baryaynaa dhulkeena runtii waa dhaweyto ayaan soo maray oo aan kormeer ku soo maray dad badanna waan arkay oo dadkii shacbiga deganaana waan soo arkay dadka runtii dhibaato aad iyo aad u fara badan baa ka muuqata dhulkana dayacaad badan baa ka muuqata waxaa dhibaatada iyo dayacaadaas runtii aynu kaga bixi karaynaa inagoo ujeedadeennii iyo dantii aynu lahayn ee muddada dheer aynu usoo halgamayna gaadhno taasaynu kaga bixi karaynaa waxaynu kaga bixi karaynaa inaynu wax kasta oo dhib kale meel iska dhigno inaynu midowno oo aynu sidii aynu danteena iyo ujeedadeena ku gaari lahayn aynu u midowno dhulku wadooyin ma leh oo aad iyo aad buu dhulku u wadooyin xun yahay dadka noloshiisu aad iyo aad bay u xun tahay ammaankiisu ma fiicna oo meelo fara badan dagaalaa ka jira oo shacbigu way dagaalamahayaan waxa aanu runtii ugu baaqaynaa shacbiga Soomaalida Ogaadeniya in ay wixii dhibaato ee dhexdooda ay joojiyaan wixii khilaafaad ah ee iyaga u dhaxeeya in wada hadal iyo nabadgelyo lagu xalliyo inaynan marnaba aynan hal aynan ka dhigin dagaal iyo qori in la isu qaato maxaa yeelay iyagoo markii horeba noloshoodii iyo jiritaankoodiba uu dhibaato ku jiray hadday haddana dagaal iyo ugu darsamaan waxa weeye runtii dhibaato aad iyo aad u fara badan baa u imanaysa marka wixii khilaafaad iyo dhibaato jirta in wada hadal lagu xalliyo maxaa yeelay dadkii odayaasha ahaa iyo hogaamiyayaashii iyo culimadii iyo dadkii mashaakilka iyo dhibaatada xalinayay way joogaan wixii wanaagga iyo maslaxadu ay tahayna way garanayaan marka in wax kasta oo dhibaato ahoo jira in wada hadal iyo nabadgelyo lagu xalliyo
oo aan marra loo kicin dhinaca mataqaanaa qori iyo ruuxu waxa uu doonayo inuu gacantiisa uu ku fushado inaan marra dhinaca loo kicin. waxaa runtii aanu doonaynaa ama muddo badan aynu halgamaynay inay ummadayadu ay aayahooda ka tashato. mowqifkii waxba iskama bedelin, waa halkiisii weeye. weli tii baanu ku taaganahay. shacbiga yaga inuu aayihiisa ka tashado markuu isagu uu arko inay dantiisa ku jirto inuu aayihiisa ka tashado ayaanu mar walba runtii yaanu ummadayada ku hanuuninaynaa oonu ku howlgalaynaa. dowladaha xiriirku naga dhexeeya dowladda Etoobiyana waxaanu ka codsanaynaa inay shacbiga Soomaalida ogaadeenaya mar walba ay ogolaato inuu aayihiisa ka tashado si ay mataqaana iyaguna ay si nabadgelyo ah ay ku gaaraan ama si nabadgelyo ah ay ujeedadooda iyo dantooda ay ku gaaraan. munaasabadan bisha Ramadaan meel aynu joognaba ilaahay waxaan ka baryayaa inaynu mid guul ilaahay inuu inooga dhigo oo aynu ku guuleysano ujeedadeena aynu ku guuleysano midnimadeena aynu ku guuleysano wada jirkeena iyo danteena aynu gaarno aynu ku guuleysano. aad iyo aad baan u salaamahayaa shacbiga Soomaalida ogaadeenya wayna ku mahadsan yihiin sida wanaagsan ee hadda ay u aqbalayaan soo jeedinta dawladda iyo maamulada sida ay ugu hoggaansamayaan. aad iyo aad ugu mahadsan yihiin. Ramadaan Kariim baan leenahay. ilaahay mid khayr qaba ha inooga dhigo ciidan iyo mideeda kalena nabad Allah inuu gaarsiiyo. aad mahadsantiin. السلام عليكم.